ninka ugu hodansan koonkan aan ku noolnahay nin aan aaminsanayn wax la dhaho suurtagal ma aha. Elon Musk ayaa galay kaalinta ninka ugu hantida badan adduunka kadib markii uu meesha ka saaray mulkiilihii shirkadda Amazon ee Jeff Bezos, hantidiisuna ay gaartay $190 bilyan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawade ku soo dhawow channelka Waaya Same. Subscribe saar channelka deedna furo gambaleelka si ay fariimaha iyo dhambaalada muuqaalkaygu ku soo gaaraan. Waxaan ka hadlaynaa ninka ugu hantida badan adduunka maanta. Waxaana idin soo jeedinaya anigoo ah Cabdirasaaq Xanad. Daawade markale ku soo dhawow channelka Waaya Same. Elon Musk waxa uu dhashay 28 Juun 1971. waa ganacsade weyn, nashqadeeye warshadeed iyo injineer. Musk waa ninka yagleelay oo dhidibada u taagay shirkadda SpaceX, sidoo kale maamulaha guud iyo nashqadeeyaha shirkadda Tesla Inc., yagleelaha shirkadda The Boring, yagleelaha shirkadda Neuralink iyo yagleelaha shirkadda OpenAI. Musk waxa uu ka soo jeedaa qaaradda Afrika. waxa uu ku dhashay dalka Koonfur Afrika, waxaana iska dhalay hooyo Kanadiyaan ah iyo aabbo Koonfur Afrikaan ah. waxa uu ku koray kuna barbaaray kuna weynaaday dalka Koonfur Afrika, waxa uu ku gaaray 17 sano. Haddaba markii uu jirsaday 17 sano ayay qoyskiisu u guureen dalka Canada. SpaceX, shirkadda sahaminta tiknoolajiyadda hawada sare ee SpaceX, 6 bishii May 2002 ayuu Musk dhidibada u taagay oo yagleelay shirkadda SpaceX. Shirkadda SpaceX waa shirkad Mareykan ah oo qaabilsan sahaminta hawada sare, saldhigeeduna yahay Hawthorne, California. waxaana dhidibada u taagay Elon Musk sanadii 2002. shirkadda SpaceX guulaha gaartay ayaa ah kuwa aysan gaarin shirkad si gaar ah loo leeyahay. waxayna noqotay shirkaddii ugu horeysay ee hawada sare u dirta gantaal halka uu ka soo kaco kusoo laabanaya. guul aysan horaanteeda gaarin shirkadda NASA ee Mareykanka laga leeyahay. bishii September sanadii 2008 ayay shirkadda SpaceX hawada u dirtay gantaalkii ugu horeeyay loona yaqaan Falcon 1. sidoo kale 2010 ayay hawada sare u dirtay dayax gacmeedkii ugu horeeyay ee shirkaddaasi dirto laguna magacaabo Dragon ama SpaceX Dragon. waa shirkaddii ugu horeysay ee si gaar ah loo leeyahay taas oo hawada sare u dirta dayax gacmeed kana dirta saldhigga caalamiga ah ee loo yaqaano International Space Station sanadii 2012. shirkadda SpaceX waxay xaqiijisay in gantaalka Falcon 9 ee hawada sare u dirto hawada sare uu soo wareego kadib halkii uu ka kacay ku soo laabto. haddee waa halkii uu ka kacay dibna loo isticmaali karo. haddaba gantaal hawada sare loo diro, hawada sare ku soo wareega, deedna ku soo laabta halkii uu ka kacay, taas oo haddana mar kale loo isticmaalo. guusha markii ugu horeysay waxaa xaqiijisay shirkadda SpaceX sanadii 2017. gantaalkaasna waxaa lagu magacaabi jiray Falcon 9. guulaha uu rabo Elon Musk ayaa ah inuu xaqiijiyo inuu hawada sare u diro dayax gacmeed sida internet ay isticmaali karaan dadka adduunka ku nool oo dhan si free ah. Elon Musk waxa uu noqday ninka adduunka ugu hantida badan kadib markii shirkaddiisa Tesla yeelatay saamiga ugu badan ee suuqa, kaas oo gaaray $800 bilyan. haddaba shirkadda motorada Tesla waa shirkad saldhigeedu yahay San Carlos, California. waxaa yagleelay Martin Abraham iyo Mark Terbring 1 Luulyo 2003. sanad kadib 2004 waxaa soo galay oo mulkiilanimada ku soo biiray Elon Musk isagoo beriga ku darsaday $6.5 milyan. Tesla waa shirkad soo saarta gawaarida korontada ku shaqeeya
waa shirkaddii ugu horreysay ee suuqa soo gelisa gaari koronto ku shaqeeya. qiimaha Tesla waxa uu bishii February ku dhawaaday $900 bilyan. Haddaba daawade, muuqaalkeennii aan kaga hadlaynay ninka ugu hantida badan adduunka, sooyaalka SpaceX iyo Tesla Motors, intaas ayuu ku egyahay. haddii uu ku qanciyay muuqaalka maantay, ha ilaawin inaad la wadaagtid asxaabtaada. sidoo kale, haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta Waayasame. Nabaadiino iyo muuqaal dambe oo xiiso leh.